fariintaydan maanta waxay ku waajahsan tahay gabadh kaste haweeney kaste inan yaro kaste hooyo kaste gudniinku saameyn weyn buu ku yeeshaa marxalad kasta oo nolosha haweenka caruurnimadeeda saameyn buu ku yeelanayaa oo ilmo yara marka la soo jaro dhiig bax baa ku dhici kara caabuq baa ku dhici kara caafimaadkeeda ayuu saameyn weyn ku yeelan karaa haddaan u imaado marxaladda labaad marxaladda shabaabka gabadh dhib badan ay maraysaa amba mutaysanaysaa gabadha gudniinka loo sameeyay because meeshii ay ka soo bixi lahaydba dhiigga caadada ee loogu talagalay si dabiici ah inuu soo baxo ayaa laga awday oo laga xiray xanuun badan bay mutaysataa dhibaato badan oo saameyn ku yeelatay nolosheeda ayaheeda dambana way ku timaadaa aanu imaado hadana marxaladda taa ku xigta gabadhii maanta waa haweeney waa la soo doonto waa aroos waa caruusad dhaawaca ugu weyn habeenkaas hadana ku dhacaya iyo dhibta ugu weyn ee ugu horeysa nolosheeda guriga cusub taa hadaynu ka soo gudubno marxaladaha nolosheeda oo kaliya markaynu ka soo gudubno haddana gudniinku haweenta wuxuu ku saameynayaa markay wax soo saarkeedii xataa ayuu dhaawacayaa gudniinku dhibaato hablaha wuxuu keenayaa markuu saameyn ku sameeyo waxbarashada inuu ka saameeyo wuxuu ka keenayaa dhibaato kale dumarkeena wad aragteen way shaqaystaan hooyooyin badan waxaad arkaysaa iyagu ilmahooda u kifaaxaya oo wax soo saaraya dhibaatada ay kala kulanto gudniinka iyo caqabadku ku keenay maca wax soo saarkeeda iyo shaqadeeda ayuu saameyn ku yeeshaa bal waayahay aan isbarbar dhigo gabadh la guday iyo aan la gudin sawir yar oo kooban aan idin soo hormarsiiyo idinkuna ila arka idinka markaa ikhtiyaarka leh gabadhee baad rabtaa inaad gabadhaada ka dhigtid hadalkaygan wuxuu u waajahsan yahay qof kaste oo ku leh door gudniinka haweenka laga bilaabo qoyskeeda hooyadeedii aabaheed ilaa iyo ugu sareeya oo mujtamaciya oo advocacy oo qofka baarlamaanka fadhiya bahweynta caafimaadka qof kasta oo saameyn ku yeelan kara go'aankaas waynu ku wada midaysanay waana lagu wada jiraa haweeneyda markaan gudniin la marsiinin nolosheeda caruurnimo caadi bay u arkaysaa waxay u aragtaa in caruurnimada inay tahay in la yar ciyaaro iskuul wax la tago wax la barto ayay u aragtaa ka soo gudub markay maalintay noqoto gurigeedii iyo nolosheedii iyadoo khaaskaana ay bilaabaysana nolol habiye bilaabaysaa oo taam ah oo ayna wax badan ka maqnayn cause xanuun badan baad dumarku dareemaan iyagu unay og yihiin haweeney oo kaliya fahansan xanuunkaas maca qoysaska dhibaato badan bay ka mutaystaan gudniinka waa ragoo maanay sida ahayn warheed hadaba aynu tashano aynu go'aan gaadhno naftan ilaahay xaq buu inagu siiyay inaynu ilaashano dhibta ka ilaalino dhaawac iyo dheeftana ka ilaalino mas'uulna adiga ka ah qof kastaba adiga naftaada mas'uulka ah haweeney kaste waxaan leenahay ka joojiye gudniinka diinteena islaamkuna waxay nafaraysaa la tu'addu bi anfusikum ila tahluka macnaheedu tahay naftiina khatar ha gelinina aniga oo dhakhtar oo caafimaadkii fahansan waxaan idin leeyahay gudniinku haweeneyda khatar buu ku yahay galiyaana marxaladaha kala duwan ee nolosheeda khatar buu caafimaadkeeda ku yahay khatar buu wax soo saarkeeda ku yahay khatar buu horumarkeeda ku yahay aynu joojino gudniinka diinteenu waxay tiri wixii khatara aynu joojino